intayna fi kugu jirto salaada waa xil iyo waajib ku saaran nin ama naakaad tahay waana faral laga helo nuur naruuro la furni iyo liibaan dad badan oo gaala ah baa jeclaan lahaa inay tukadaan gaaladu ciil bay u go'aan markay arkaan muslim ku jira salaad waxay jantaan salaada oo jeclaystaan adiguna ma tukatid salaada sidee ku dhacday rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal fasawfa ya'lamun wa inta in badan kuwa gaalooba jeclaan doonaan inay ahaayeen muslimiin dad badan oo gaala ah baa islaamay salaada awgeed markii ay arkeen dad tukanaya filosof faransi ah oo la yiraahdo Renan wuxuu yiri ma soo admarin masjid waligay iyadoo aan dareemin ka xumaansho inaan ahayn muslim adiguna waxa tahay muslim waadna diidan tahay inaad timaado masjidka waad diidan tahay inaad tukato wali su'aashii baa ku hortaagan ii jawaab maxaad u tukan weyday maxaa kuu diiday inaad tukato nin la yiraahdo Thomas Arnold wuxuu yiri isagoo ka hadlaya salaada ma jiro qof soo dhaxgalay muslimiinta oo markii u horeysay ay tahay aan yaabin oo ayan saameen sareynta aqeedadooda iyo sifada salaadooda meel kasto aad joogto jid xafiis gagadiyuradeed tareen iyo wax lamid ah waxaad badi arkaysaa waa nin ama naag istustus aan ka muuqan oo ka tagaysa camalkeeda wuxuu ahaadaba oo si degan ku baxaysa si uu u soo gudato fariidada si khashuuc leh salaada waqtigeeda waa wax jamaal leh soo jiidasho badan la janto oo la jeclaado inaad tukato dadku way tixgeliyaan wayna qadariyaan indhahooduna uu ku weyn yahay qofka ay arkaan inuu ku dadaalo salaada waayo waa calaamad iimaan waa iftiin waa ilaahay salaadu waa nuur zaki arifi oo ahaadu yahuuda masar wuxuu yiri waxaan mar waliba isweydiin jiray maxaad u gali weyday diinta islaamka waxaan dareemi jiray ayuu yiri dareen yaab leh markii aan arkay nin